السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دمان قيارت يوتيوب aan salaamay cashirkeena maanta wuxuu ku saabsan yahay sidaan usoo dejisan lahayn ama aan usoo degsan lahayn Windows 8. marka waxaan isticmaalaynaa barnaamijka loo uTorrent anima ujeeda waa soo download garaystay waana 32 bit ayaan soo degsaday haddii computerkaaga yahay 64 bit ama 32 bit mid labadaba linkiga oo idin diyaariyay waana 3 gigabyte marka si aad usoo degsatid kan waxaad ujeedaa inuu yahay 32 bit inuu yahay ninkaan iska xirno kan 32 bit in markuu yahay waa ujeedaa inuu 32 bit yahay window meeshaan waxaa ku qoran ujeedaa window 8 pro window media center 64 bit English kan waa ujeedaa inuu yahay 32 bit marka kan ayaa soo degsaday uTorrent-gana marka isticmaalisidna waa free wax lacagna ma ahan haddii aad rabtid inaad soo download garaysatana description-kana waan ku dhigay ama haddii aad rabtid inaad habka loo soo degsado aad aragtid waxaad tegaysaa google-ga kadibna waxaad ku qoraysaa uTorrent ayaad ku qoraysaa kadibna download-ka ayaad ku dhufanaysaa isla markii waxaa kusoo baxaya uTorrent-ga kan waa ka download gashan kartaa ama kan midka aad ku dhuso kadibna wuxuu ku geenayaa webkooda ayaa tegaysaa sababta ujeedaa utorrent.com.download waaye kadib adig freega download garayso kan waa lacag kan laakiin freega soo degso kadib markaa soo degto computerkaaga ku shub kadib waxaad sameynaysaa markii aad windowgan aad rabtid inaad degsatid waxaad ku dhufanaysaa meesha ku qoran tahay get this torrent ayaad ku dhufanaysaa kadibna wuxuu ku leeyahay sidaan launch okay iskaga dhufo kadibna wuxuu ku weydiinayaa mujadid application-kan hore ayuu u jiray may sidaas ayuu u jiray haddii aan ku celay isla markii mid kale ma bilaabayo kii hore ayuu meeshii kasii wadayaa haddii aan fiirino kana tusaale ahaan markaan kan ka tirno aanan remove ka tirno kan all of the remove aan ku sameyno si loo garto inuu soo degay in kale aan ku dhufano markaan launch application kadibna waxaan leenahay meesha marka wuxuu ku weydiinaya haddii had drafsigaaga uu kaa buuxo ama dhiigu ku bannaan yahay meeshuu ku bannaan yahay meeshaas ayaad ku dhufanee kadibna meeshii aa u rabtay ayaad leedahay ku fur kadibna waxaa leedahay meesha waxa kusoo qoraya drafka magaciisii wixii dhammaan kadibna waxaa leedahay okay ayaa leedahay kadib wuxuu bilaabayaa ujeedaa in uu ku download gareeyo haddii aan isku dayno inaan kan kale 64 bitkan aan isku dayno inaan soo dejino meeshan ayaad ku dhufanaysaa asigana kadibna launchiga ayaad leedahay meeshii sida haddaan kugu sheego kale ayaad dooranaysaa kadibna waxaad leedahay okay ayaa leedahay labadaba waa ujeedaa inuu soo dejiyo 64 bit intaba inuu wado waqti badan ayay qaadanaysaa waxayna ku xirantahay hadba internetkaaga soo speed badan yahay marka all of them hadda aan boos dhahno kale ani horaan u wada degsaday kadib maxaa lagaga baahan yahay inaad samaysid markii uTorrent sidaan kuu furmo sidaan ayuu kugu soo baxayaa window 8 pro PowerISO macnihiisu wuxuu yahay waa software meeshaan haddaan ku qoro power ku qoro sidaan ayuu kugu soo baxayaa wuxuu sameynayaa PowerISO uu ku sameynayaa haddii artina DVD waa lagu duubaa asoo freena waa soo download garsan kartaa laakiin kan waa lacag kadib maalmo ayuu ku siinayaa kadib ku dhameyso haddii aan si ku ogaanayno window 8 yahay waxaan leenahay right click ayaan leenahay kadibna waxaan leenahay PowerISO kadibna waxaan leenahay extract iyo faylashii gudaha ku jira sida WinRAR ayuu gudaha nooga soo bixinayaa markii haddaan fiirino waxaad ujeedaa faylashii ayuu wadaa inuu soo daadiyo ujeedaa window 8ka inuu yahay hadduu yahay window 7 nooc kale ayuu soo saaraya laakiin 8 inuu yahay waa ujeedaan marka waxaa ujeedaa faylkii hadda waxaa ka dhiman 25 second ayaa ka dhiman marka wuxuuna u qaaday meesha drive-kayga meesha qaybta e-ga ayuu u qaaday oo folderkan aan ku magacaabay Win8 badan windowgan waxaa lasoo geliyay 2002 bishii 12aad ayaa ugu dambeeyay waqtigii lasoo geliyay macnaha soo geliyeen
markii folderka si aan noogu soo dego waxaad u jeedaa haddii aan setupka double click siino aan tijaabino in uu window 8ka shaqeynayo iyo in kale. sababtoo wax kasta waxay ku wanaagsan tahay in laga dhigo wax nadiif ah ee dadka shaki gelinaynin. waxaa laga yaabaa dadka qaar markay videoga duubayaan inay wax kale ku tusaan haddana aad wax kale lagu tuso aad laba hadhow markaa samaysid aad leedahay waxbaa ka dhiman si wax u jiraan ma ahan. laakiin waxaad ogaanaysaa waxaa la socotaa qofka stepka maraayo waa la fahmi karaa qofka iyo qofka khiyaanada wado. marka waxaad ka doonaysaa meeshan language ayaa ka doonaysaa kadibna next ayaa leedahay kadib wuxuu ku weydiinaa installation. marka aniga installation hadda kuma sameynayo marka Windows XP siyaas u soo download gareyso marka waa free wax lacag ma ahan. insha Allah bina kareem qeyr ayaan idin rajeynayaa. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wa jazakumullah.